الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، الله تبارك وتعالى أدومديسا ووديغا كتابك وحو سو دجيي إنو أدومديسا وحي دبا uga digo wixii dhibaato iimaan karta inuu uga digo wixii maslaxa iyo dan ana inuu tusaaleeyo oo uu tuso oo uu ku irshaadiyo. Allah tabaaraka wa ta'ala waxyaalaha uu inooga digay ee dambiyada waaweyn ka mid ah, waliba dambiye kale waaweynna ka sii dhashaan, waxaa ka mid ah inaad aamin ka noqoto Ilaahay makrigiisa tabaaraka wa ta'ala, inaad isdhigato ama aad halmaanto Allah tabaaraka wa ta'ala iyo makrigiisa iyo dhagartiisa. Allah tabaaraka wa ta'ala sidoo quraanka inoogu sheegay adoomada qaar ka mid ah wuxuu kula dhaqmaa sunnatul istidraaj, wuu u seeta dheereeyaa, caafimaad baa la siiyaa, xoolaa la siiyaa, wuxuu rabay baa la siiyaa, adduunka lagu fasaxaa, wuu tamashlayn, waa isu bogayaa, waa ishalmaamayaa, maruu dhexda marayo ayaa la qabanayaa si kada ah. Allah tabaaraka wa ta'ala sunnada noocaasa iyo caadada noocaasa markuu adoomada qaar ka mid ah kula dhaqmayo, in badan oo ka mid ah ma fahmi karaan, mana heli karaan Ilaahay sunnadiisa istidraajka, sida Rabbi quraanka inoogu sheegay sanastadrijuhum min haythu la ya'lamuun, ma igaranayaan. isaga waxay la tahay insaan lagu jecel yahay, waxay la tahay inuu sidaa ku fiican yahay, waa isla qumay, laakiin waa lagu maqan yahay min haythu la ya'lamuun. kaydka Ilaahay iyo dhagartiisuna way adag tahay oo cid ka baaqsan karta ama ka fakan karta ma jirto. wa anna dhananna an lan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba, yaa ka carari kara, yaa ka fakan kara, yaa iska celin kara ya ma jiro. waa quwo mutlaqa, waa awood aan xuduud lahayn, waa awood aan xuduud lahayn. sidaas daraadeed baa waxa waajib ah cid kasta oo rabbigii rumaysan in uu mar walba cabsi qabo. hayla Allah tabaaraka wa ta'ala waa kugu maqan yahay, waana ku arkayaayo waa kula socda mirsaad aymilu kugu jira, waa kula socda dhaqdhaqaaqaaga iyo dhaqankaaga iyo sawt tasarrufaysa iyo fikirkaaga iyo qalbigaaga iyo waxaad samaynayso waa lagu daalacanayaa. markii meel xun lagula rabana waa lagu daajinayaa, daaqso, cun, cab, tasarruf, soco, meel baa lagugu sugayaa, xilli baa lagugu sugayaa. meeshaa markaad soo gaadhana Ilaahay tabaaraka wa ta'ala waa ku qabanayaa. inna Allaha la yumli lidh-dhalim hatta idha akhadahu lam yuflithu, bu nabigu sallallahu alayhi wasallam. dhaalimka Ilaahay waa u sugaa, kulama soo boodo. Ilaahay waxa ka mid ah sifaadkiisa sifada la yiraahdo xilmiga, dulqaadka, waa dulqaad badan yahay. hadduusan dulqaadkaasi Ilaahay uusan lahaan lahayna adoomadan iyo waxa dhan mar hore u burburin lahaa, mar hore la dhamayn lahaa, may istaahilin inay dhulka korkiisa joogaan. laakiin Ilaahay waa dulqaad badan yahay tabaaraka wa ta'ala. dulqaadkiisa waxa ka mid ah adiga oo xumaan qasanaya oo ku dhex jira oo wuxuusan rabin oo raali ka ahayn ku dhex jiraay, haddana in lagu daajiyo lagu daayo. laakiin macnaheedu ma aha in lagu moog yahay, macnaheeduna ma aha in lagugu jecel yahay, laakiin waxa weeye waa lagu seeta dheeraynayaa. saas daraadeed baa Allah quraanka kariimka inooga digay meelo badan oo quraanka ka mid ah iyo aayado fara badan inaan aamin ka noqono Ilaahay xuquubadiisa iyo cadaabkiisa iyo makrigiisa. mu'min baa tahay, Ilaahay baad rumaysan tahay, aakhiraad rumaysan tahay, waxa dhacayaad arkaysaa adduunkiyo dabagadoomahaya inta rogmanaysa
waxa dhacaya masaa'ibta waxaan adigoo arkayaay haddana inaad isdhigatood aamin ka noqoto ilaahay cuquubadiisa iyo makrigiisa ma aha allah wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala afa amina ahlu lqura an ya'tiyahum ba'suna bayaatan wahum naa'imuun magaalooyinka dadka degani ma waxay aamin ka noqdeen inuu u yimaado cadaabkanagu bariiso ayagoo hurda ayagoo habeenkii seexday oo nabad ku soo seexday oo guryahooda iyo sariirahooda hurda inay cuquubadannadu u timaado ma aamin bay ka yihiin waa maya oo imisaa habeennimo la galay imisaa ummado habeen la halaagay cidina habeen in gurigiisa lagu galo aaminka ma aha awa amina ahlu lqura an ya'tiyahum ba'suna duxan wahum yalcabuun aaminse miyay ka yihiin in cadaabka ilaahay iyo cuquubadiisu u timaado maalinnimo iyo dharaar cad ayagoo ciyaaraya ayagoo tamashlaynaya ayagoo cunayoo cabbaya ayagoo suuqyadu u camiran yihiin ayagoo kasbanaya in ilaahay cadaabkiisa u yimaado ma aamin bay ka yihiin waa maya laxdadaa aad joogteed masaajidka dhex fadhido ilaahay cuquubadiisa iyo cadaabkiisa waa kugu habsan karaa ayi laxda ilbidhiqsi kasta mucarad baad u tahay habeen ha noqoto maalin ha noqoto markaasaa rabbi wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala afa aaminuu makra allah ma ilaahay makrigiisa iyo dhagartiisa ay aamin ka noqdeen oo isdhigteen ilaahay makrigiisa aamin kama noqdo isma dhigto ilaa cid khasaartay mooye haddaad aragto ruuxaan ilaahayba ka baqaynin oo makrigiisa iyo dhagartiisa aaminka oo isdhigtay oon dan ka lahayn shaki wuxuusan ku jirin qur-aanku inoo sheegay inuu khasaarsan yahay laanna ilaahay tabaaraka wa tacaala meeshuu ku wadaad garan marba hadduu addoonku baqdinta ka tago is-ilaalinta ka tago adduunyada ku fakado shaki ma laha meel gaaban ayaa la qaban doonaa isagoon is-ogayn oo is-halmaansan meeshaasaa lagu wadaa marka waa khasaaray marka aayad kale rabbi wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala afa amina aladiina makaruu sayi'aat ma aamin bay ka yihiin kuwa dembiyada samaynaya xumaanta ku kacaya ma aamin bay ka yihiin an yakhsifa allahu bihim alarda inuu ilaahay dhulka la gooyo dhulkan aad dembiga ku samaynayso ilaahay baa iska leh ilaahay ciidamadiisuu ka mid yahay hadduu buqcadaa aad xumaanta ku samaynayso alla amar siiyo oo yidhaahdo qabo way ku qaban way kula go'i sida ilaahay tabaaraka wa tacaala ummado ka midaba dhulka ugu diray oo uu la go'ay dhulka qaarkood uu ilaahay ugu diray oo dhulgariir intuu dhacay dhulku ula go'ay qaar ka mida buuraha ilaahay ku fasaxay waxaanaad arkayso waa ciidamo ilaahay wey tabaaraka wa tacaala badaha iyo dhulalka iyo meel walba makhluuqaadkani waa ciidamo kuu kugu dirana kaa adag mid kuu doonu ilaahay kugu fasixi karaa ma aamin bay ka yihiin in dhulka lala gooyo mise cadaabku inuu u yimaado meelayna dareensanayn oyna kuwa fikirinba inuu uga yimaado waxaa laga yaabaa inaad meelaha qaarkood baaqdin ka qabto laakiin waxaa dhici karta in ilaahay cuquubadiisu kaaga timaado meel lama filaan ah meel aadan filayninba si aadan filaynin waqti aadan filaynin inay kuu timaadana waa suurtagal aamin miyaad ka tahay aw yaatiyahum alcadaabu ama cadaabka ilaahay iyo cuquubadu inay timaado xaaladda ay gadgadoomayaan oo adduunka dhexdiisa ku gadgadoomayaan adoo safaroo socota adoo ladanoo tamashlaynaya ama inuu u yimaado cadaabka ilaahay iyaga oo cabsanaya xaalad cabsi iyadoo abuuran tahay oy jirto inuu cadaabka ilaahay u yimaado yaa aaminka ah cidina aaminka ma ah saas daraaddeed buu ilaahay dadka mu'miniinta wuxuu ku tilmaamay والذين هم من عذاب ربهم مشفقون عذابك إلهي بكبقان بقدين بي مر والب هبين يا مالين بكوتشرتاي وقلبي قود وبقيا محايا لي إن عذاب ربك غير مأمون إلهي عذاب كي سوى مذان مرنا آمن لقى أحيين عدنا آمن كما عد عذابك إلهي عقوبتي سأدوني آخر كآمن كأ وعد إلهي أشاقي
ووحي لوغو الشيغي عيد كالي سكستو أضاع بدنيه وعبادة بدنيه آمين كما إلهي عذاب كيسي عقوبة ديس روح كستهوى في الانكرا والله دعيك الله قنايوه روح كستهوى في الانكرا ساس دراديد بي مؤمنين تو كوا وضا أغفي عن أغو طاعبدا أي أغو عبسي بدنايين ساس دراديد بي علماء النقدين دادك إلهي أغو عبسي بدن إنما يخشى الله من عباده العلماء لأن لا أحد في مأمن من عذاب الله ومكره أحدنا آمن كما أحدنا آمن كما روح آمن كا عذابك إلهي إسدكتا إسقوا أن دنينين كا خساري واي حيلي وحبدلي مركز روح مركو إسدكتو وعذابك إلى آمن كان نقضه والشيطان ينفط أشكيان وحياله فربضن باكدش وحاكدش والدم بوين إيضا لفت هذا إن آد الدنيا ذا إسراعيسو لأن كلما عبسيدا دو بدتو كنترول كاجي إسلال انت هذا بدنيس مركز توق غفلة إيس هلمان كو دعانا الدنيا ذا كلتا جيسو كو قادنيسا وحاكم إذا وحل يدهدو طول الأمل يدي ديلا دير عمر دير واتسين نولان دونتا وحي كتي مادا إلهي مكري جسود آمين كالنقطي وحاكم إذا إن نولشن شهوات كذية دلدلال كذا وحمودود كحسشو إن الذين لا يرجون لقاءنا أبو الله تبارك وتعالى كوا أن رجينين إن كبقين لكولا كنجا إنه إلهي لكول ما يقول لا حساب تميدون ولا بعض مريدون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا نلوشن الدنيا الرالي كن نقضوا كقنعي واطمأنوا بها أيدا كحسلي والذين هم عن آياتنا غافلون آياتها نجنا أن موجبو هالمانسن وحبا أن كور هينين الله وحده تبارك وتعالى هو يجود كوا سوى النار الدنيا كلها تجي مرك وحكم ذا ضاعدي إلهي واجباتك أو كفري آيات كتشيتسن أما كلا فضودان مركز إلهي مكري جيز آمين كالنقط صلاته سكدي صونكي حجكي واجباتكي أيا كلا فضودان أيا بحيل بقدين تاكوير وحكم إذا الذنوب إلهي كاربي قليتان كذا كوفضودان أيا إن قصته أخيرا نوحد كدلنا أيا إن خاتم حماءات كل مات وأديكو اسمك وحمانتي كتشرة وقصنايا وكفق عادي إن تادي كوتي ما دو مركا لغو قبته وخلاص مركا واكونا ماتي ما لقصوا النقضة ما تشرتو رجم ما تشرتو هل كاسا مركا وحاكاقا بالله منايا إلهي عذاب كيسي هي عقوبة ديسي مانك قبرك اللغو ديقو بل نفتب مركا لغا قاضي أدو اللغو دول تشوغو بعذابك كوكو بالله منايا خسارة وين واحد سيداس درادت بان ربك تبارك وتعالى اسقو إنون نصيحيني أيا إن بدن قرآنك كم إذا إن بدن قرآنك وحلين أقول شيء ور إسجرا ور إسإلهليا ور تحدرا ور بقدين قبا ور محوها الدلالة ور مر والبئين وحيد كو إيمان كران كو تلقلا جيريدي كو تلقل عذابك إلهي كو تلقل عقوبة دي كو تلقل إن لقو إيمان كران مركز تي ساعتك لتلقل كذا يالو تبابو شديدي ديار قرو قدنا يالو سيدا سار ربيان إنو قوانين يا دنك لا إن جمالها تبارك وتعالى نفعنا إنه جمقب تبارك وتعالى ملك جيسنا وحبكو كردين ما إنه لكن أدوم دي سيبينه هو ناقو إن لتش عليه خير بو إن لتش عليه آخر يتشندي سينا حديثنا نهلو عليه دقنين بو إن السينا يا وحى صوص عدو إنه قد يا وحى إيمان كرنا وإنه برارو تشنا يا رب جن تبارك وتعالى قرآن كريم نبي جيسو إنه كان صلوات ربي وسلامه عليه سيداس درادد كن على خوف ووجل الله تبارك وتعالى مؤمنك روحا لبا عبسيود وما كل مية سيد النبي صلى الله عليه وسلم لبا أمان إلهي أضوم كما وضسيه روحي أدونك كبقة وبقدينت إلهي أي كبضته آخر بقي مايو لبا عبسيود ليسوك هذا مايو لبا أمان اللقوة وضسين مايو روحي أدونك إلهي عذاب كيسي مكري كيسي آمين كالنقضة آخروسا آمن نقونين عبصو
si aad cabsida aakhara uga badbaado isdhigo oo aamin ka noqo si aad bari iyo aakhara cabsidaadu ay u bilaabato ood aafaad iyo ahwaal iyo masaa'ib aad u gasho sallu wa sallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله